wadnahaygu hata wuxuu ku jiraa xaalad aad iyo aad u xanuun badan. Ilinteeduna waxay u soo dhacdaa sida roob da'aya oo kale. Ma u seexan karo si toos ah hal habeen oo dhammaystiran. Intaan ka badan ma dagaalami karo. Midba midka kale qalbigiisa waa uu jaban yahay. Waan kala qaybsannay. Mar dambe ma wada sii joogi doono. Mana doonayo inaan la sii dagaalamo waqtiga, mana jirto sabab. Waan ogahay inaan weligay xaaladan oo kale aan la kulmin. Laakiin i rumayso, mar kasta oo aan ku arko, qalbigayga waa mid dhalaalaya. Waan ku jeclahay markaas. Welina waan ku jeclahay. Waa ballan aan kaa qaaday had iyo jeer. Waana mid aan samayn doono. Ma aqaano sababta, balse waxaan ku khasbanahay inaan ku dhaho walaasheedii wanaagsaneed. Laakiinse waa ku jeclaan doonaa tan iyo maalinta aad dhinto. Qalbiga ayaa iga jabay, laakiin weli waxaan leeyahay rajo meel fog igaaga soo muuqanayso. Maalin uun waxaa laga yaabaa inaan dib u wada midowno oo waqtiga soo socda caawinaad aan ka helno. waa anigoo walaalkiina Zaki Zama. haddii aad ka hesheen muuqaalkan fadlan la wadaag asxaabtaada adigoo u sii share gareynaya. haddii aad nagu cusub tahay si aysan kuu dhaafin muuqaalada xiga, fadlan channelka subscribe saar, like inagu caawi. wixii afkaartaada waxaad inagu soo gudbin kartaa qaybta hoose.